Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Kulanti wacan oo wanaagsan daawadayaal meel kastood adduunka ka joogtaan kusoo dhowaada barnaamijkii ciyaaraha oo toddobaadkiiba laba mar aad ka helaysaan barta aan ku leenahay YouTube ee ciyaaraha News Live Football. Fadlan daawade haddii aad tahay daawade nagu cusub waxaanu kaa codsanaynaa inaad barnaamijkan aad subscribe saarto lana wadaagto asxaabtaada qaaliga kugu ah. Like, share iyo commentigana aad ku farayaraysataan. barnaamijyada aad sida tooska uga heli kartiin barta aan ku leenahay YouTube waxaa ka mid ah faaqidaada ciyaaraha, dhacdooyinka kubadda cagta iyo weliba waxaan meesha ka marnayn barnaamijkii suuqa kala iibsiga. fadlan daawade ha ilaawin inaad subscribe noo saarto janaalkeena. Kooxda Manchester City aan ku bilaabi doono horyaalka wareegiisii lixaad ayaa waxay soo dhoweyn doontaa kooxda kubadda cagta ee Watford oo ciyaar xiisa lahayd kula soo ciyaartay gurigooda kooxda Arsenal, ciyaartaas oo ku dhamaatay 2-2. Man City waxay isku dayeysaa inay kasoo kabsato guuldaradii xanuunka badnayd ee kasoo gaadhay kooxda Norwich City, taasoo jilbaha dhulka loogu aasay. balse macalinka kooxda Manchester City ayaa waxa uusan caadaysan guuldarooyinka, waxaana la fili doonaa inuu isbedel weyn ku sameeyo shaxdiisa ciyaareed, isagoona soo dhaarin doona weeraryahanada ay kala yihiin Jesus, Kun Aguero iyo Sterling. Guardiola waxaa dhegtiisa kasii yeerisay qamuunyahasaha uu haysto ciyaartii jilbaha dhulka loogu laabay oo uu la ciyaaray kooxda Norwich City ee kasoo dalacday heerka labaad. waxaana dhinaca kale fooda istari doona sabtida labada kooxood ee kala ah kooxda AC Milan iyo Inter Milan, kuwaasoo had iyo jeer ku dagaalama caasimada dalka Talyaaniga ee Milano. labadan kooxood waxay had iyo jeer ay ku loolamaan midba midda kale inay xukuumadda u qabato ayna ka taliso caasimada Milan, balse macalinka cusub Antonio Conte ayaa rajeynaya inuu imtixaanka ugu adag ka gudbo. walow ciyaartan aan la saadaalin karin, ciyaaruhu way kala yihiin ciyaar kuma toosna. AC Milan laftigeedu ma yaraysato, dab yar bay shidaysaa, dab yar. ciyaarihii hore way ka tageen. maxkamadaha Talyaanigu heer waxay gaareen inay ku daalaan inay maamulaan. waxaa laga rajeynayaa ciyaaryahanka weerarka uga ciyaara kooxda Inter Milan, Lukaku. waa ciyaaryahankii ay dhowaan kasoo iibsadeen kooxda Manchester United ay ku qarash yareeyeen adduun dhan 76 milyan dhibic 5. Lukaku waxaa laga filanayaa inuu hogaamiyo weerarka Antonio Conte, kaasoo aaminsan in ciyaaryahankan uu wax badan horseedi doono. waxaynu sugnaaba waa labada ciyaarood. waxaa horyaalka dalka Talyaaniga hadda hogaaminaya kooxda Inter Milan oo isku dayeysa inay sii xejisato kooxda Juventus. waxay iyadana ku dhici doontaa berri kooxda yar ee Verona. ciyaarta aad ku adag waa ciyaarta la sugu kari laayahay ee AC Milan iyo Inter Milan. waxaynu sugnaaba waa ciyaartaas. dhinaca kale waxay ciyaar xiisa la dhex mari doontaa labada kooxood ee kala ah Villarreal iyo Real Madrid, ciyaartaasoo ah ciyaar ka tirsan La Liga. kooxda Real Madrid waxa ay guuldaro xanuun badan kala soo kulantay horyaalka Champions League oo ay la ciyaarisay kooxda PSG, ciyaartaasoo si xun loogu ceebeeyey lana arki waayey Hazard oo loo filayay inuu bedeli karo booska Cristiano Ronaldo, balse taasu waxay u muuqataa fashil aad u xun oo soo wajahay kooxda Los Blancos. waxa ay ciyaartu ku dhamaatay 3-0, ciyaartaasoo fool xumo aad u badan ay kala kulantay kooxda Real Madrid, taasoo keentay in lala xiriiriyo macalinkii hore ee kooxda Manchester United oo ahaa Jose Mourinho laftigiisa ayaa ka hadlay in warkan uu yahay war xan ah, wararka qaarna ay qorayaan. dhinaca kale Zidane ayaa waxaa laga rajeynayaa inuu isbedel weyn ku samayn doono shaxdiisa ciyaareed, waxaana wararka qaar ay soo tabinayaan in Zidane uu canaan kala duldhacay ciyaartoydiisa lagana doonayo isbedel weyn inay ku sameeyaan. aan ku bilowno dhinaca kale waxaa iyadana ciyaar xiise leh ay dhex mari doontaa labada kooxood ee kala ah Granda iyo Barcelona oo ciyaartii u dambeysay ay la ciyaartay kooxda Dortmund, ciyaartii ka tirsaneyd horyaalka Champions League ay ku galeen 0-0. waxaase dhinaca kale uu soo kacay Barcelona farxad weyn u ah in Messi ciyaaryahanka
mucjisada kubadda cagta uu usoo kacay kulankan isagoo laga filan karo inuu isbedel weyn ku sameyn doono, waana laf dhabarta kooxda Barcelona. dhinaca kale Barcelona ayaa waxa ay 4 kulan ay ciyaartay waxa ay ku kala badisay 1-0 oo ay looga badiyey, iyo ciyaarta 5-2 ilaa iyo 2-2 5-2 ay uga badisay kooxda Valencia. soo laabashada Lionel Messi ayaa waxay Barcelona ay tabi doontaa inuu waxtar weyn kusoo kordhiyo, waana laacib aan marnaba laga maarmin. waxaana dhinaca kale ciyaaryahanka ay Spain ugu dhawaaqday dhalashada cusub inay siisay, kaasoo asal ahaan kasoo jeeda dalka Guinea Bissau. ciyaaryahanka Fati ayaa la rajeynayaa inuu kusoo bilowdo kulankan. waxaan daawadayaashana ka codsanaynaa inay barnaamijka ay sheergareeyaan lana wadaagaan asxaabtooda kale ee qaaliga ku ah. intaas waxaa inoogu dhammaaday barnaamijkii ciyaaraha ee hordhaca ciyaaraha maanta dhici doona. waxaanu ka codsanaynaa daawadayaasheena inay noogu soo wadaagaan wixii aragtidooda ah commentiga, lana wadaagaan asxaabtooda kale ee qaaliga ku ah. fadlan hamogaanin inaad noo saarto subscribe. waa codsigii ugu dambeeyey. asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.